aniga dhimashada ma igu haysa culays ugu hayso dhimashada waa u taagan habeenii maalin qof oo ka sasaqayana meehi marka laakiin waa been abuur waxa sayda horta aan ku saxa marka hore dagaalka alla sunna iyo galmudug uma dhaxay alla sunna iyo dawladda Soomaaliya u dhaxaya ama state ahaata ama federal ahaata waa saa sheegtay haye bal soo dhawow marka alla sunnana dadkoona wada ma ahna alla sunna macnaha waa niman urmudineeda oo magacay rabaan ba isla baxay magaca iska quruxsan ma ahna waa niman shabaabka waxa ka sukayn marka dagaalna waa wada galay maanta waana ku guuleysanay dagaalada jurceelay gacanta ku hayeen waa gacantooda waa ka saarnay marka howluhu waa meelaha si joo waxyaabahan barandada Facebook iyo meelaha iyo sawirada la dhigayo oo leeyahay baakay waa dhintay iyo hebelka iyo kan iyo aniga dhimashada ma igu haysa culays ugu hayso dhimashada waa u taagan habeenii maalin qof oo ka sasaqayana meehi marka laakiin waa been abuur waxa sayda waa gartay hadda xageed ku sugantahay oo aad igala hadlaysaa wixii bartamahan kala hadlay laamiga dhaxdiisan loo weenayaa si nabadgelyo ku dhaxloonayaa waa gartay maanta waxaad ka soo dhaqaaqdeen magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya bal iska horimaadkii aad la gasheen ahlu sunna iyo xaaladii aad soo martay muddadii aad wadadaas ku soo socotay nooga waran والله إنما كان أما الصفها ليرها أما الصنها ليرها أما ما كلا قرحان الله بحناه إنما نبديت في الصومالية نبديت في الصومالية كم دواية أو حزبية أو مجا ولا ما شكته أنا هذا مجا عسكري ما بدنا اللي أما أي معناه اللي شيء هي عندي دنا هيو وصلنا وعقيدة ونكسن ومضى الصومالية بدنا يحيسته ما مركز مجا أيوم ملحن ومضى الصومالية أنت صمدا أنت مسلمين ترى كلام مجا عس وعربا مركا wax culays ah oo haba yaraatee shaqada qaranka oo hayno oo aan dhifsano oo aragni ma jirto dadka qarandiidka aan in la dagaalo oo gacan bira lagu qabto waa waajib muqaddas waaye marka ay dadka qarandiidka ay noqdeen oo ku macnaha kooxaha qarandiidka oo koox kamid ah oo kooxaha oo qarandiidka marka wax hadda oo caqabad oo aan kala kulanayna ma jirtaba waxaad ii sheegtaa mar leena ka qabsanay waajibkaan leena ma haysana mar hadduu dagaal dhaco waxa jira qasaare ka dhasha waxaad iga warantaa maxaa qasaare oo idin soo gaaray idinku maxaad sa gaarsiiseen culimada hubaysan ee ahlu sunna saxabkay horta su'aalahaas badanaad weydiisay kuma nabalan xanaana waxaan ka rabaa wax qasaare oo haba yaraatee qaranka Soomaaliyeed soo gaaray ma jiraan ba iyaga maxaa qasaaro gaarsiiseen waxaana ciidanka ama dawlad goboleedka state-ka laga xukumo magaaladan ha noqoto ama ciidanka qaranka oo aagan jooga ha noqoto madaxda ugu sarreysay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jirta ay joogto wasiirada jiro oo qaabilsan wixii warfaafina ayagas la hadal ee la xiriir aniga su'aashaad weydiisay ku waxyaabaha baraha bulshada ku aragtay inaad xaqiijisay ahayd ana ku xaqiijiyay magaalada gurceel gacantan ku haynaa in xaqiijiso waxyaabahan kale marka oo su'aalahan kale cidii iska leh iyo kala xiriir waaya ugu dambeyn halka haatan aad joogtaan xageed uga dhaqaaqaysaan meeshii qaranka u noocam waa ku mahad celinaya taliye